barnaamijka waxaan ugu soo noqday arrin la iiga bartay oo ahayd jacaylka qoyska oo aan hadda ka hor kala hadlay hablaha ayaa waxaan doonayaa dhigeedii maanta inaan wiilasha kala hadlo arrintaas dad badan oo bulshada ka mida oo ragga aqoon-yahaniinta ee dhallinyarada ay u badan yihiin ayaa iga codsaday inaan raggana u sheego jacaylka gabdhaha waa u sheegay dad badani waa daawadeen waxaan hadda inay ku wada jiraan waxyaabahan midiyaasha aad haysataan ee gacmaha ku haysataan marka maanta waxaan doonayaa inaan wiilasha u sheego warbal gabdhaha jacaylkii lagala hadlayo way ku dhaqmeen oo way qaadeen tallaabadaas way ku guuleysteen ragna bal inuu ku guuleysto arrintaas jacaylka muxuu yahay marka jacaylka tii hore aan hablaha ka u dhigay maaha waxa weeye jacaylku waxa weeye horta marka hore labada qof inay aad iyagu isu jecel yihiin marka iyagu isbisleeyaan oo isjeclaadaan kadib ay qoys dhisaan okay maxaa wiilkii marka lagu yeeshay wiilkii gabadhii markuu guursado aqal buu kaga tagaa wuxuu yidhaahdaa naqadada sii kari guriga sii joog meelahaas uga soo baashaalaa waa soo qosqoslaa farxad badan buu soo helaa gabadhii iyadu waxay ahaataa gurigii wax sii joogto okay maxaa laga rabaa marka wiilka war maxaa gabadha jacaylkii aad gabadha ku guursatay ilaan gabadhu maaha busta meelayaal iyo birkine maxaad ula qaybsan laada maxaad gabadha jacaylka u bari laada maxaad gabadha ula sheekaysan laada maxaad gabadha u raali gelin laada ilaan gabadhu maaha busta meel lagaga tagee marka ragga waxaan leeyahay dhalinyaroy ragga waaweyn ee jacaylka yaqaan iyo mutacalimiinta iyo maaha dadkaan ka hadlaya seen bari markaan hadlayo waa 30 jir iyo wixii ka yar waxaa laga yaabaa dadka waaweyn habarta waalatay maxay ahayd jacayl ka sheekaynaysaa jacaylku waa waxa la isku dhalo ee aynu ku taranno ee guri ku hagaago jacayl jecelna qaran uu ka qiimo badan yahay jacaylku waa aabbiyo la jecel yahay hooyadiyo la jecel yahay sodoodiyo la jecel yahay seedigiyo la jecel yahay dumaashigiyo la jecel yahay waxaa soo baxaya bulsho dhan oo isjecel oo wanaagsan marka wiilka waxaan leeyahay eedo waxaad samaysaa gabadha la sheekayso gabadha maxaan kuu sheegaa marmar dalxiis iyo meelaha u saar xafladaha iyo gabadha qalbigeeda wanaaji gabadha maskaxdeeda kasbo hadday cadhooto waxaad jirta waqti ay cadhaysan yihiin oo la rabo in loo dulqaato waqtigaasi wuxuu maraa baan u malaynayaa 4 bilood 5 bilood gabadhu maaha maskaxdeedu ma degana marka ilaahay uu awraad ku abuuro cadhadeedaa badan marka inaad tiraahdo naqayla badnida la rabshad badnida naga tag oo mid kala doonato waa khalad markaasaa jacaylku qurux badan yahay adaa beertan beertay macaani hagaaji wanaaji maxaan kuu sheegaa raali geli gabadha kori maskaxdeeda yaa waxaan isleeyahay dhalinyaroy maaha facebook in la iska jeclaado maaha facebook in laga sheekaysto maaha in facebook gabdhaha lagu raali geliyo gurigooda risaaqada ilaahay baa bixiya reerku hadduu wanaagsan iyo raalli isku yahay waxa weeye risaaqadba ma waayo furiinkuna wuu yaraanaya hadda waxa weeye furiinku wuxuu marayaa khayr alcaadi gabadhi ilmo wadata tiyo laba wadata tiyo maxaan kuu sheegaa aroosa waxaana waa la burburinaya marka waxaan leeyahay daayarey arrintaa laga gudbo dadka waaweyn shaqo kuma leh waa dhalinyarada markasta marka anagu haddaan nahay ururka daryeel waxaan rajaynaynaa oo in la garab taagana inaan barno cuntada la jecel yahay dharka la jecel yahay uusiga la jecel yahay sistamyo idinka dhimano aydaan gaarin rag iyo dumarba idinlana fadhiisano wiil iyo gabarhba wiilku keena inuu noqdo uusiga soo iibiyo cadarka soo iibiyo birica quruxda badan soo iibiyo habeenkii casho macaan soo qaado oo yidhaahda caruurtii waxay ku mashquulsantay caawa cashowga xaajiyadii gabadha way farxaysaa keena rag waa jecel yihiin haweenka horaan ugama tagaan keena leeda ninka fariidka oo reerkiisa kasbada marka waxaan leeyahay keena noqda casho macaan soo qaada uusi soo qaada cadar soo wixii gabadha way kaa sugaysa maxay u dhibtay bariskani baa tiro gurigaad kaga tagtay warsoo adeeg oo dul qaado oo ilmaha jecel oo saa u qaado ilmaha yar dhunko oo kooli oo gabadha ka reeb markay soo adeeganayso waxa weeye adaa dhalay ilmaha ilaahay baa ku siiyey iyada keliya ha ku eegin marka waxaan leeyahay jacaylka qoyska haddaan nahay daryeel ururka daryeel mar kasta waxaan jecelnahay waxaan u malaynayaa arrimahan sii daya 2 goor baan ka hadlaan u malaynayaa arrintaas jacaylka mar walbana hablahan la hadlaayay oo hablaha runtii dee hooyaanahay waxaan jeclahay inaan hablaha waxa aan baro oo waxa aan u sheego laakiin bal wiilashana dayaga ruuxooda hooyaanu ah marka wiilashana insha allah waxay xaq u leeyihiin laakiin jacaylku waa muhiim
imikana waxa weeye barnaamijka dhan daryeel isu taagtay iyo baalaheeda iyo baartileerkeeda iyo aqoon-yahaninteeda iyo la talinteeda waxay talaysan hawl yar ahayn mar kasta waxaanu jecelahay inaanu idin dhaga nuglaano waxaanu nahay dad muxuu ahaayey volunteera dad aan faa'iido doonayaal ahayn dad u heelan horumarinta bulshada kastoo wanaagsanna waxaanu jecelahay inaanu gacanta qabanno wax kastoo wanaagsanna aanu bulshada ku hogaamino